بريهم waxaan ku hawl jirnay seen u bari lahayn ganacsatada cashuurahan aynu ka shaqeyno isla markaana aynu u fududeyn lahayn hanaankii ay cashuurta u bixin lahaayeen tababarkan imika maanta wuxuu la xidhiidhaa shaqaalaha iyo cashuurta gadista GST-ga marka labada cashuurood baynu doonaynaa inaynu baranno sidii ay ugu soo bixin lahaydeen idinkoo xafiisyadiina iyo gurihiina jooga online oo intoo systemka ku soo upload gareysaan lacagtana online ah ku bixin lahaydeen isla markaana juwanka la idiin jarayo iskaan markaaba la idiin soo saaro oo la idinku soo celiyo oo halkiina ka yeeshaan oo iska fayl gareystaan xabada originalkana maalin alla maalinta xafiisyada timaadaan qaadataan waa barnaamij oo runtii nagu hogaaminaya wasiirkeena oo runtii ay tahay in cashuur bixiyaha aanu la dhaqanno as customer oo cashuur bixiyaha aan diiwaan gashano aynu suntanno aan barno aan ogaano aan lambarka aqoonsiga siino aan la xiriirno aan meel ugu cawdo iyo meel xog ka helo iyo aynu siino insha Allah hadii la hadaado aan u fududeeyno hababka oo cashuurta ku bixinayo sidoo kale si uu cashuurta si fiican ugu bixiyo xeerarka ka ogaado hababka loo bixinayo ogaado ganaaxyada iyo waxyaabaha ka rakibmayo ogaado aan tababar ku siino insha Allah hadii la hadaado waxaan hore u soo sameynay inagoo fududeynta cashuuraha ka eegina sida koobtiin marka waxyaabaha idin fududeynaya ugu waaweyn reformska waaweyn ay imka socdo waxa kamid ah in cashuurta aad ku bixin kartaan nidaamyada adeegyada lacag bixineed dalkeena ka jira haduu ahaan lahaa saad haduu ahaan lahaa dahab haduu ahaan lahaa accounts aad ku leedeen 3 commercial bank dalkeena ka jira iyo hadad bank dhexe oo ku leedahay account inaad si adigoo xafiis yimid ku bixin karto in sidoo kale adigoo xafiiska iman oo ka maqan oo gurigaaga iyo xafiiskaaga jooga aad bixin karto systemku ku sahlayo aad sidoo kale diiwaan gelin ku samayn karto seen hore loo shaqeynay marka waa barnaamijyada aynu ku fududeynay runtii waxaan noo sameyn helbideskadii iyo hotline-nadii insha Allah hadii la helaado waxyaabaha kale muhiimkaanu gacanta ku hayno badankooda naga fulay qaarna aanu insha Allah weeyga dama furi doono imkana gacanta ku hayno waxa kamid ah fududeynta xafiisyada shaqo wadaagyada ah ee wasaaradaha guud xyaala oo dhammaan qaar badan midaynay insha Allah hadii la helaado oo halka adeegyada ugu tagaysan adeegyada kulba meel loo tagi lahayo waliba xafiisyada qaar daca wasaarado badan iyo institutions badan oo dawladda ka xidhan oo koonayaasha magaalada kala tagi lahaydeen inaanu hal goob oo shaqo wadaagid ku keenay waxaan one stop loo yaqaan insha Allah hadii la sharaf iyo farxad bay tahay in kala soo qayb galo munaasabadan sidii agaasimayaasha u sheegeen waa munaasabad kamid ah kulamadii taxanaha aynu isugu imanaynay aynu isku wacyigelinaynay isku baraarujinaynay sida cashuurta loo bixiyo annaka wasaaradahan waxa naga go'an inaan cashuuro kaliya qaadin laakiin u qaadno sida ugu fudud aan jecelahay in kala timaadno hagtaan haddii jiraan waxyaabo la fududeyn karo oo idinku adag inaan noo sheegtaan tiraahdan waxaan soo jeedin halkaan wax laga bedelo waanu dhegaysanaynaa waan qaadanaynaa sida maalinta hore baan idhi waxaynu qaran ku nahay uu ku jiraa oo magac ku leh oo maqaam ku leh caalamka waa dowladnimada waxa ku fadhida waa cashuur runtii cashuur bixiyahan waan idinka mahad celinaya gidigan ba cashuur bixiyaal badan wadana inteeda halkan joogtay wasaaradda matalaysa qof walba mushaharkiisa markuu qaadanayo cashuurta automatically ba looga gooyay marka gidta cashuur bixiyaal badan wadana laakiin maadaama xagga qaybta gaarka loo leeyahay amba ganacsiga marar fara badan laga yaabo inay ku adkaato habka cashuurta looga gooyo shaqaalaha jecel inaan idinla qaybsano farsamada loo maro inaan idinla qaybsano wuxuu kaloo munaasabad inay ku saabsan tahay bixinta cashuurta iibka ay sideedaba caalamka wadamada ka jira oo dhan siday u badan yihiin malaa 190 ka badan cashuurta dowladdu qaadaa toogu badani waxay ka timaadaa cashuurta beriga waa cashuurta macaashka ugu horeysa cashuurta payrollka ku xigta cashuurta saleska oo iyaduna ku xigta saddexda cashuurood bay ka yimaadaan runtii cashuuraha badidooda
innaka maahay kastamkay ka yimaadaan si u badan yihiin marka waxaan doonaya in ka guuro cashuurta kastamka ugu guuro cashuurta beriga si dekedeena laftigeedu ay u noqoto dekedee u adeegta waddamada kale geeska oo aynaan ku culaysanin cashuur laynagaga tago oo ay dekedeenu tartanka ku jirtaa ay u tartamayso dekedaha geeska sida tan Jabuuti oo kale iyo Boosaaso iyo kuwa kaleba marka waxaan doonaa runtii inuu ka guuro cashuurta kastamka ugu guuro cashuurta beriga